السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دواad asxaabteeda kusoo dhawaada channelkayga Nasra Carfaayo Cooking Channel. asxaabi hadii aad nagu cusub tahay soo dhawaada, hadii aad hore noola joogtana soo dhawaada mar kaleento. asxaabi insha Allah maanta waxaan sameysan doonaa rooti oo dhaxda wax laga gelin doono insha Allah oo ugu talagalnay cashadeena fudud insha Allah. waxay ka koobnaan doontaa intaan insha Allah. bismillah. meeshan waxaan ku haystaa weelkii aan ku qasi lahaa. meeshan waxaan ku haystaa biyo oo qandac ah waaye oo waxyar soo kululee biyaha aad ha u karkarina u jeedaa qandac leh waaye ma uu qaacooda ina u jeedin qandac waaye. inta waxaan ku haystaa qiyaastii 4 qaando oo saliid ah. meeshan waxaan ku haystaa 1 qaando oo sokor ah. qaandada oo cuntada lagu cuno sokor badan la isticmaalayo maadaama rootiga hadhow la dhex gelin doono wax dhanaan ah. meeshan waxaan ku haystaa 1 koob oo koobkan yarka ah oo caano ah. meeshan waxaan ku haystaa 2 koob oo bur ah. koobkan aan kusoo cabiray, koobka mar walba waxa ku cabira waaye oo bur ah. bismillah. hadirtaan waxaan bilaabaneynaa. sidoo kale meeshan waxaan ku haystaa xabad ukun ah. ukun hadii aadan haysanin markaas waa ka maarmi doontaa insha Allah. bismillah. hadirtaan waxaan ku shubanaa leebato. hadirtaan waxaan ku shubay 1 qaando oo leebata ah. wax yar raacsiye qaandada. sidoo kale waxaan ku darsan doonaa qaandada afkeeda hore oo cusbo shiidan ah. cusbada hadaysan ku shiidneenin waxaa sameynay tun waa tumanay insha Allah. meeshan waxaan ku haystaa sokorti 1 qaando sokor ahayd waa ku shubtay. kadibna waxaan ku shubanaa wax yar oo biyo qandac ah. moota waaye leebatada iyo sokorta iyo cusbada markaas sidaan isku shubtid waxaa sameynay waata asxaabteeda leebatada iyo muxuu ahaa biyaha iyo sokorta markaas sidaan isku shubtid waa daboolane ilaa iyo waxa suganaysaa 10 minute camal amba 10 daqiiqo. 10 daqiiqo kadib waa soo laabanayna insha Allah. waata asxaabteeda 10 daqiiqo kadib waxa ku soo laabanay muxuu ahaa leebatadii waa u jeedaa markii muxuu ahaa oo sidaan wax yar u qamiirisid sidaan u qurux badnaane hadhowna rootigu wuxuu ku noqonaa rooti jilaac badan insha Allah. sidaan aan roo in xumbo u yeelato. hadirtaan waxaan ku darsanaa xabadii ukun ahayd. kadib waxaan ku darsanaa 4 qaando saliid ahayd. hadirtaan waxaan ku darsanaa qaandadan yarta oo aadna u buuxin oo bakin ah. meeshan waxaan ku haystaa caanihii. hadirtaan waxaan ku darsanaa burki 2 koob. hada burki iyo muxuu ahaa alaabihii kala sidaan isku dhex gelina kadibna gacanta la gali doonaa insha Allah. howl fududeen laga wadaa ma fahamtaan. ila aadanka waxa wixii fudud iska jecel yihiin. kadibna safiicana usoo xashaa waa isoo dhaxgelina waa isku soo laabanayna insha Allah. maraw muuqaalka inoo nagu dheeraado. asxaabteeda waa isoo dhaxgeliye xoogayga dhan ma ka baqiilin. waa u jeedaa sidoo u qurux badan yahay. saana la rabaa inuu isaga dhan isku dhaxgalo saan u qurux badnaado si hadhow soft kuugu noqdo insha Allah. waa u jeedin
waata asxaabteeda markaa qasitaanka sidaas u dhameysatid waxyar saliida waxaa ka marinee hoosta iyo geesaha si hadhow markuu soo qamiiro ugu dhegin. korkana waa ka marinee si hadhow kaaga dhegin meesha markaas wixii markaas aa ku dawooshid. waata asxaabteeda markay sheekada meesha marayso waa daboolanayna ilaa iyo waxa sugeynaa insha Allah 40 daqiiqo kadib waa isku soo laabanayna insha Allah. waata asxaabteeda inta noo soo qamiiraayo in rootigi waxa si sameeysanayna insha Allah wixii raay u hadhow dhaxda laga sii gelin doono insha Allah. meeshaan waxa ku haystaa xabad basal ah, xabad barbarooni ah, xabad yaanyo ah iyo xabad muxuu ahaa isha gasaca oo malaayga oo mar way hadda ka isticmaalooy 2 xabad toon ah iyo isbeesiska markaas gadaal loogu dari doono insha Allah. hadirtan waxa diyaarsaneena muxuu ahaa isheeg qudaarteen insha Allah. bas waxa waa yaryarena sidii sambuuska oo kale بربروني نعسي نساس أو كلا ولا يرينا. waata asxaabteeda hadirtaan waxa ku darsanaa kabsar caleenta waa yaryareena ayadana. waata asxaabteeda waatana kabsar caleenti meeshaan waxa ku haystaa xabad karoota ah oo lama idiin duubin waa ku xumahay basashi waatana yaanyada iyo barbarooni iyo toonti. dirtaan waxa sameeysanayna intaana isku shiilanayna insha Allah isla socod wanaagsan. awadiya dabka soo saartay waxa ku shubanaa wax yar oo saliid ah, hal qaando camal waa saliid badan ma rabo, waa gaarsiinaa si u yartahay saliida inaan burshka ku mariyeen qaniina si u yartahay leebs. bismillah. waata asxaabteeda hadirtaan waxa ku shubanaa basasha intaana isku huurinaa. marka haddana waxa ku darsanaa malaaygi aan kalluunki toonada ahay.
waata asxaabteeda hadirtaan waxaa ku darsanaa wax yar oo maraq digaag qudaarta ka samaysan. maraq digaag haddii aad necebtahay cusbo ku bedelo. waxaa ku darsanaa wax yar filfil shiidan. waxaa ku darsanaa wax yar oo xawaaji la isku dar garam masala. haddana waxaa sugeynaa wax yar inta isku huuri doonaan insha Allah. waata asxaabteeda hadirtaan sidaan oo diyaar noogu yahay ilaa waxa ma la bisleen way maahino he waa huurineena le hadda sidaan oo diyaar noogu yahay dabka ka damina kadib oo qaboobaa geeskaana iska dhigana waxaa sii diyaarsanaynaa rootigeena insha Allah. waata asxaabteeda hadirtaan waxaa kusoo laabanay rootigii ma sha Allah waa ujeedaa sidoo u khamiiray. haddana khamiirka ku celceliyay. waata asxaabteeda sidaana usoo wada kuukuusana isku soo laabanayna insha Allah. waata asxaabteeda sidaa markaa u fidisid waxaa sameynay sidaana u jarjare bismillah. sidaan ka dhigtid waxaa sameynaa qudaartii ku diyaarsaneed oo soo qaboojisay ku shubay marka. asxaabe markaa sidaan u sarsartid waxaa sameynaa sidaana oo gidinaa kadibna waxaa ku shubay qudaartii dhaxda ku shubay qudaarta. kadib waxaa sameynaa sidaana ugu soo laabe waa xiree marka. markay hoosh intaas ku mareyso waxa soo diyaarsanay insha Allah. hadda waxa soo diyaarsaday saxankii oo foornada aan ku gelin lahaa. waxa soo mariyay bur iyo saliid kadibna rootiga soo qabanaa si tartiib ah.
tartiib ayaa u saareysaa saxankii. asxaabi tartan saanki waa bedelan ku dhex labadan xabo ugu dambeysaan aad ila qurux badnaatayba. maasha allah tabaarakallah. waa ujeedin asxaabteeda nashqadan sidaana ka dhigay sidaanaaba ilo qurux badnaatay markii dambe. waata asxaabteeda meeshan waxaa ku heystaa ukun oo qaybta jaalada bas ah, qaybta cadaanka waa kasoo reebay. waxaa sameynaa rootiga korka ka marmarina si hadhow guduud qurux badan iigu noqdo. waata asxaabteeda waa kaas ukunta waa soo wada marsaday. hadeertaan waxaa sameynaa ilaa 10 daqiiqa suga foornada sii shidana inta ii kululaanaysa insha allah. foornada 3 daqiiqa ku kululaanay laakiin 10 daqiiqa suga insha allah. 10 daqiiqa kadib waa isku soo laabanaa. waata asxaabteeda hadeertaan foornada way ii soo kululaatay. heerkulka 150 oo ii yahay kor iyo hoos ii dooran. timingkana 20 daqiiqo waa 20 daqiiqo kadib waa kusoo laabaneynaa insha allah. waata asxaabteeda hadeertaan rootiga diyaar uu noo yahay. foornada waa ka damiyay waa ujeedin guduudkiisa quruxda badan. hadeertaan foornada ka soo baxsaneynaa insha allah. waata asxaabteeda rootigeena quruxda badan sidaan quruxda badan oo noogu soo baxay waa ujeedin disaynkii kaleenta waa kana ani kan leeba ka helaybano qurux mayno maasha allah. hoostan sidaas uu ka noqday aad u qurux badan yahay. jileeciisana wax laga sheekay kara ma aha. ujeedin kii kaleenta oo ugu sambuusiga ahayna waa kana asina hoostiisa sidaanay noqotay. waa ujeedin quruxdiisa. bismillaah. saa markaa dhahdidna waa ujeedin qudaartii oo muxuu ahaa ii sheeg dhaxda ku jirtay. macaankiisana wallaahi wax laga sheekeyn kara ma ahan. aad uu u macaan badan yahay. asxaabteeda idinkana soo tijaabiya ka faa'iideysta insha allah. intaa haysanin allah siiyo annagana allah noo siyaadiyo. asxaabe muuqaalkana like saara, like badan saara. lagta farii maahino lagta dhac ku sii insha allah. muxuu ahaa ii sheeg asxaabteeda caawa muuqaalkeena ama maanta muuqaalkeena oo cashadeena fudud insha allah intaasoo kusoo gabagabeena. intaa dib u kulmi doono muuqaalka xiga waa walaashiin Nasra Carfaayo idinkaga tagayso khayr iyo caafimaad bashbash iyo barwaaqo insha allah. Nasra Carfaayo.